Laacibka xulka qaranka dalkeena Soomaaliya Quwaye ayaa ka mid ah ciyaartoyda laf-dhabarta ah xulka dalkeena Soomaaliya ayaa dhaawac soo gaaray xilli ciyaareedkii hadda dhamaaday. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka dhaawacmay lugta midig ee jilibka waxaana ka mid ah xiddigaha ugu fiicnaa ee dalkeena Soomaaliya. Ciyaaryahankan ayaa xaaladiisa guud ka warramay iyo qaliinka uu maray waxaana qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook. Cabdulaahi Cabdalle Quwaye oo ka mid ah laacibiinta ayaa sidaan ku soo qoray: Alxamdulillaah, dhaawacii soo gaaray xilli ciyaareedkii idlaaday ayaa shalay qaliinkiisa ku maray dalka Masar. Ilaahayna waa ii fududeeyay, waxaana rajeynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan garoomada aan dib ugu soo laabto anigoo caafimaad buuxa qaba insha Allah. Waxaan u mahadcelinayaa dhakhtarka sida wanaagsan qaliinka u sameeyay iyo kaaliyaashiisa, ayuu yiri Dr. Cabdinuur Garcade, iyo sidoo kale Prof. Siciid oo ii sameeyay qaliinka jilibka waana dhaqaatiir aad ila dhaqmay xaaladda aan soo maray, ayuu yiri. Hadda waan caafimaad qabaa, waxaan rajeynayaa in xilli ciyaareedka dambe aan ka soo muuqdo waayihii ciyaareed kubadda cagta. Waxaan u rajeynayaa laacibka xulka qaranka dalkeena Soomaaliya in caafimaad taam ah uu siiyo insha Allah.